waxaan rabaa halkan inaan maanta saxaafadda uga cadeeyo sida ay saaxiibadayba cadeeyeen in xubinnimadii golaha wasaaradda ee aan ka hayay xukuumadda uu madaxda ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee ahayd wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta inaan iska casilay marka koowaad marka labaadna xubinnimadii xisbiga kulmiye golaheeda dhexe iyadana sidaas leeg marka saddexaad xubintii guddiga fulinta xisbiga kulmiye aan ku jiray iyadana inaan iska casilay hadal badan mar raba halkan inaan ka idhaahdo laakiin kaliya waxaan rabaa inaan sheego nin gabiyey oo loo jeeday Cali Dhuux baa wuxuu yiri rag cadaalad waaya sidii cawsha kala yaa arintaa waxaan ku soo ururinayaa waa statement aan isleeyahay way ku filan tahay qof kasta oo garan karaya ama af Soomaaliga iyo balaaqadiisa wax ka yaqaan inay wax ka tari doonto xisbigaygii buu ahaa xisbiga aanu dhisanay buu ahaa xisbiga aanu ku shaqeynay buu ahaa xukuumaddan 5 sanadood iyo dhowr bilood aan wasaaradda badan ka soo qabtay baan wasiir ka ahaa runtii aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha xilkaas muddadii aan la shaqeynayna shakhsiyad iyo wanaag baan runtii kala kulmay laakiin waxaan dareemayaa in wax badan ay weecadeen Soomaaliduna waxay tirahdaan nin reer weyn iyo gabadh ka umulisan midna sidoo og yahay wax uma sheego halka arinta dhaafin maayo aad iyo aad mahadsantiin